weli barnaamijka dabagalka wararka ayaa daawanaysaan. maalintii labaad waxaa xiran wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo muddooyinka u dambeeyay ku sugnaa deegaanka maamulka Soomaalida ee Ethiopia. halkaas uu tagay markii uu isbeddelku ka dhacay gudaha Ethiopia, gaar ahaan maamulka Soomaalida ee wadanka Ethiopia. madaxweynihii dowlad deegaankana la xiray, madaxweyne cusubna deegaankaasi loo soo magacaabay. wuxuuna ahaa shakhsi aad uga soo horjeeday hab maamulkii hore ee uu hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar. hase yeeshee wariye Cabdimaalig oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa gobolada iyo deegaanada kala duwan ee deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa lagu xiray magaalada Gaashaamo jimcihii sida wararka aan ku helnay. haddaba sida xarigiisu u dhacay iyo xaaladiisaba waxaan wax ka weydiinaynaa Axmed Warsame oo kamid ah waxgaradka Gaashaamo. telefoonka ayuuna hadda toos ugu jiraa. Axmed, haddii aad maqli karto bal sida xariga Cabdimaalig uu dhacay faahfaahin naga sii. bismillaahir rahmaanir rahiim. walaalaad baad u mahadsantihiin. xariga Cabdimaalig sida uu dhacay, marka hore Cabdimaalig waa nin ka soo jeeda deegaanka Gaashaamo. deegaanka Soomaalida waxaa la isku haybsadaa marka caasimada oo kale aduu gobolkiibaad ka tirsan tahay. qofku markaa gobol ka tirsan uu sheegaa degmadu kasii tirsan saaxiibkiisa lagu gartaa. markaa wuxuu kasoo jeedaa gobolka Jaro, degmada Gaaramo ayuu kasoo jeedaa meelaha dega. ninka Cabdimaalig haddii aan faahfaahiyo, deegaanka dhawaan buu yimi bishii October. anigu jijigaan joogay markuu yimi. deegaanka aad baa loogu soo dhaweeyey. madaxweynaha ayaa dalbaday oo yiri degmada Gaashaamo ha laga soo qaado oo gaari u diray. fiican baa deegaanka loo soo dhaweeyey. waa nin wariye ah oo la yaqaano oo xuquuqda dadka magaranaysa u dooda iyo dadka aan dadkooda dhiiban karin iyo dadka fikradahooda iyo aragtiyahooda kala duwan soo tegiyo weeyaan, oo meelaha magaranaysa ay ku habboon yihiin ama meelaha ay u dirayaan gaarsiiya. marka ninkaas waa ninkaa weeye. anigu shalayta meeshii laga qabanayo waan joogay ilaa la 3 maalmood meelahaas ku joogay Gaashaamo. markii ugu horeeyay uu degmada yaan waaba la kulmo waan wareystay. wuxuu igu yiri ilaa 3 weyn baa laga yaabaa inaan degmada joogno. degmada baaxadeeda iyo population-ka ku nool iyo taariikhdeeda iyo waxyaabahaas laga yaabaa inaanu magaranaysa aanu ka warbixino oo aanu ogaano. marka anigu shalayta waan joogay markii la qabanayo, meesha laga qabanayo waan joogay. waxaa la wareysanaya dad shacaba oo dumar iyo waxyaabahaas u badan iyo odayaal. marka iyadoo meeshii lagu urursan yahay oo goor ilaa 10 barsaxnimo meelahaas ay tahay ayaa waxa yihi ciidamada iyo booliska. kadib waxay dhahaan joojiya. markii ay joojiyeen way u yimaadeen maxaa jira. waxay dhahaan wararkan iyo waxaa duubaysaan bulshada dawladda iska horkeenaysaan. hadallada maqlayay bay kamid ahayd. kadib waa la kaxeeyey 3 wariyo kale la socday. wax dhibaato looma geysanin. isaga weliba shirka hore gaariga ayaa la saaray, 3 wariye kalena dusha ayaa la saaray. halkaa laga qaaday waxaa lagu yiri aniga ma raacin, laakiin xerada new booliska la geeyey. adigu waqti kadibna waxaa loo gudbiyey xerada makalakaliyaga ciidanka militariga dowladda federaalka Ethiopia ayaa loo gudbiyey baa la yiri. anigu galabta waxaan u tagay salaadkii maqrib meelaha markii la eedaamayay. anada ciidanka militariga aan ugu tagay iyagoo fiican isaga fadhiyo iska qayliyo sharaab iyo biyo iyo waxbaan u geynay. waan wareysanay. waxay dhaheen dadka iyagii u gudbiyay inaan wax dhibaato aan naloo geysan, aan iskana joogno arkayguna iska dhammaan doono. telefoonadii ehelkooda iyo xasiina siiyeenaan u gudbinay. marka intaan warka magaranaysa ka haynaa waa intaa weeye. waxa kale aan haynaa markii aanu dee la xogeystay cidda warkan lagu qabanayay wariyaha iyo wariyaasha kale la socday. warka uu ka yimi nin la yidhaha Axmed Koore oo dawladii hore Cabdi ilay ahaan jiray, oo waladii raggii heegada ugu waaweynaa heegada hogaamin jiray ahaa. inuu subaxii la soo hadlay xubno reer Gaashaamooda. ninka afhayeenka baarlamaanka degmada Gaashaamo inuu la soo hadlay, inuu yiri anaga waxa ii sheegay oo maantadan ii sheegay afhayeenka degmada Gaashaamo nin Muuse la yiraahdo ayaa aniga igu yiri waxa ila soo waaya ii wadi Axmed waxa ila soo hadlay buu yiri ninka aniga afhayeenka ii sheegay ninku Axmed Koore la soo hadlay baa maanta aniga ii sheegay anigaygan.
waaya marka ninka ayaa ka dambeeya ku yidhi wuxuu yidhi axmed kooraas subaxnimadkii horey la soo hadlay shalay intii aan la qaban ka hor weriyaha wuxuu yidhi waxaa la qabanayaa nimankaa weriyaasha ee degmada gaashaamo jooga waa la qabanayaa ciidanka makalakaliyaga qabanaya haddaad tihiin qolada maamulka degmada gaashaamo ka caawiya si loo qaban lahaa intaasuu igu yidhi buu yidhi waaya waxaan ku weydiiyey axmed marka hadda ciidanka federaalka ayaa gacanta ku haya cabdimaalig waa sidaas soo ma ciidanka federaalka ayaa ku canya xerada ciidanka anigaa ugu tegay salaadka maqrib markii la eedaamayey si fiican baa loola dhaqmayey wax dhibaataa looma geysan way iska sharaabayeen way iska qayilayeen wax dhibaatii ma haysanin marka halkaasaaba ugu tagnaa ma weydiiseen ma isku day inaad la xiriirtaan madaxda deegaanka maamulka soomaalida Ethiopia sida madaxweynaha iyo xubnaha kale oo aad weydiisaan bal waxa lagu haysto wariyaha iyo wariyaasha kale la socda anigu horta shakhsi ahaan cid aan dee magaraysa la xiriiray ma jiro laakiin sida warkaa la sheegay ninka axmed koore la yidhaha warkiisaan ku hayay dee raggii waaweynaa hogada hogaamin jiray markii uu yidhi waa nimankaasaa la qabanaya ka caawiya in la qabto warkaasi inuu isagoo uun ka yimi welibana uu sheegtay teetal khaldano aanu lahayn oo uu yidhi aniguna waxaan ahay la talinta madaxweyne aan ahay uu yidhi ninkaasina aanan ku ogeyn inuu la talin madaxweyne yahay markaas barnaamij isaga laftiisu waxaan ugu haysanaa inay ahayd iska horta shacabka iyo dowladda inuu ninkaasi waday oo warar aan kililkuna ogeyn oo magaraysa kililka dowladda deegaanka laga tallaabsaday oo ciidamada federaalka uu isagu toos ula xiriiray inay ahayd un baanu u fahanay hawshana ninkaasi watay iminkana waxaa laleeyahay un isagii bay taagantay ku kooban tahay markaanu wareysanay dee xogaha aanu helay waxaa laleeyahay cabdimaalig wuxuu doonayay in ay war ka soo sameeyaan oo ay soo baaraan dhacdooyinkii ka dhacay gaashaamo iyo deegaanada kale gobolka jarar dad badan la sheegay in lagu laayay marka arrintaa ma jirtaa ma idinkala hadlay cabdimaalig adigu odayaal uu wareystay baa jiray wuxuu ka wareysanayay taariikhda degmada gaashaamo xilli hore inay xitaa gobol ahaan jirtay bay odayaasha u sheegayeen saaxadda degmada ay u sheegayeen dowladdii hore iyo siday u dhaqmi jirtay ay u sheegayeen dhibaatooyinkii ay ka geysatay deegaankii ay u sheegayeen inay badan isbedel fiican samaysay areetol qowl la sameeyey umada si fiican dhaqmay waxyaabahaasay ay duuyeen oo dad ay uga warramayeen axmed warsame aad baad u mahadsan tahay waxa uu ka mid yahay odayaasha magaalada gaashaamo teleefonka ayuuna iigu warramayay isagoo jooga gobolka jarar gaar ahaan deegaanka ama degmada gaashaamo isla arrimahan cabdimaalig ayaynu ku guda jirnaa waxaanu la soconnaa in isbeddelka ka hirgalay deegaanka soomaalida iyo guud ahaan Ethiopia uu horseeday lana sheegayay muddooyinku dambeeyey in xurriyaddii hadalka dib ay u soo laabatay oo dadku ay xor u yihiin in ay aaraadooda gudbiyaan warbaahintuna ay si madax bannaan oo xor ah uga shaqayn karaan deegaanka soomaalida iyo guud ahaan waddanka Ethiopia haddaba arrintan saamaynta ay ku yeelan karto isbedelada ayaan eegi doonaa iyo dadaalada ku aadan in dib loo soo celiyo xorriyaddii hadalka waxaa telefoonka markaan aan aadayaa dhinaca iyo jigjiga guuleed axad sheekh oo ka mid a aqoon-yahanada deegaanka soomaalida telefoonka ayuu hadda toos ugu jiraa guuleed waad la socotaa arrintan xarigga cabdimaalig waxaana la filayay in isbeddelkan hirgalay uu horseedo in la hormariyo xurriyadda hadalka arrintan maxay ka dhigan tahay arrintan xariga cabdimaalig muuse coldoon haddii aan kaaga warramo horta cabdimaalig muuse coldoon waa shaksi ethoobiyaana waa saxufi ethoobiyaana oo caana waxaa jirta waxa uu waddanka ku soo noqday oo madaxweynaha uu xasuumad ka helay 2 Oktoobar ee sanadkii hore markuu madaxweynaha xasuumadda uu ka helay muddo badan ayuu jigjiga tuugay hawshiisii saxufinimo ee lagu yaqaanay ayuu ninkaasi waday wax dembiya ama qalalaata uu wadayna ma jirin si lagu yaqaanay ee samafalnimada ayuu hawshiisii uu watay
16 bishan oo shalay ah ayuu gaashaamo tegey dabeetana waxaanu ku war helayuun cabdimaalig muuse coldoon waa la xidhay waaye xariga cabdimaalig muuse coldoon waa mid aan horta aada u cambaarayn haddii aan nahay shacbiga dowladda deegaanka soomaalida waayo cabdimaalig muuse coldoon waa shaksi taariikh dheer ku leh dowladda deegaanka soomaalida ku nool oo xilligii dhibaatooyinka fara badan waa nin aada u dooday oo ka qayb qaatay kicitaankii dowladdii dhibta badnay ee dadka dhibta ugeysatay waana sababaha keenay in uu madaxweynuhu ugu yeedho jigjigo si ilaa iyo halkii uu kasoo galay oo gaashaamaayo waayahay guleed telefoonka ayaa ka go-ay dib ayaan qadka ugu laabanayaa si bal halka uu uga sii wado hadalkiisa waxaa dhinaca kale soo baxayey muddooyinka u dambeeyey in qabaa'ilka qaar ee deegaanka ay ka cabanayaan habmaamulka deegaanka soomaalida ee ethoobiya iyada oo aan weli isbeddelku si baahsan u gaarin guud ahaan bulshada ku nool maamulka soomaalida ee ethoobiya iyada oo dadka qaar ay iyo siyaasiyiintaba ay soo bandhigayeen arrimo ku saabsan in musuq maasuq iyo culaysyo kaleba ay deegaanka ka jiraan inkastoo weli aanay mas-uuliyiinta maamulku si rasmiya uga hadlin waxaan ku laabanayaa markan dhinaca iyo guuleed guuleed waad og tahayoo isbeddelka guud ahaan ethoobiya ee ka yimid ama ka bilowday oo deegaanka soomaalida soo gaaray waxyaabihii muddooyin ku dambeeyey lagu bartay waxay ahaayeen in dadku ay xor yihiin aragtidooda ay si xora u dhiibtaan warbaahintuna ay si madax bannaan u shaqayso marka xarigan cabdimaalig miyaa lagu micnayn karaa in mar kale culayskii xurriyadda hadalka lagu hayay ee ethoobiya uu soo laabtay ha dabcan waa lagu macnayn karaa waayo waxaa saxaafadda hortaaba dee etoobiya markii isbedelka uu dhacay la ilaamiyo inay saxaafadda xor tahay in siyaasaddii la furfay oo nidaamka xisbiyada badan la qaatay oo aan dibna laysu caburinaynin marka xarigan cabdimaalig muuse coldoon dee waa mid intaaba ka hor imanaya oo waayo shaksi aan dhibaato wadin qalalaaso wadin bulshadii kicinaynin dee in xabsiga layska dhigo oo iyadoo aan wax dembiya lagu soo oogin layska haysto dee waa qayb caburinta kamid a marka dabcan waa la oran karayaa in ay horseed u tahay ama ay tusayso in qaybo weli kamida dowladda etoobiya aanay weli la qabsanin in ay dee saxaafadda hor tahay oo qof waliba ra'yigiisa u xor yahay oo qofka haddii aanu dhibaato wadin aan dee layska soo xidhan karin way guuleed waxaa la leeyahay ciidanka federaalka ee militariga ayaa gacanta ku haya markii horena ciidamada liw booliska ayaa soo qabtay haddiiba uu ku sugan yahay cabdimaalig kuna sugnaa deegaanka soomaalida oo maamul uu ka jiro ciidamo ay leeyihiin maxay tahay sababtan loogu gudbiyey ciidanka federaalka ee militariga etoobiya wallahi waa adigu markii la qabtay xataa laftirkeeda waxaa naloo soo sheegay iyadoo maamulkii degmada meesha ka jiray ama gobolkuba aan wax wara ka haynin in cabdimaalig qabashadiisa uun la bilaabay markaa taas waxa ay tusaysaa dee in maamulkii meesha ka jiray gacan dhaaf dowladda dhexe ay ku hayso oo ay qofkay doono xidhayso markaa taasu dee waxay noqonaysaa in waxay ka macno tahay oo kale meesha dawladi kama jirto waayo meesha maamul baa jiray maamul gobol baa jiray heerarkii kala duwanaa ee maamulkaa jiray dee qofkii dambi lagu hayo ila qofki mar haddii aanu dagaalamaynin ama aanu qorissanin ama aanu dad rabshad waday oo guruuba aanay ahayn oo amniga khalkhal ku ah dee waxaa ku filan hal askariya loo diro oo jeelka geeya xitaa haddii uu dembi geysto marka wallahi ma garanayo anigu sababta keentay dee qof shiciba oo aan dhibaato wadin dee in guutooyin ciidana inta loo kaxayso in lasoo xidho oo la xidho marka waa adigu waa qayb waxay tusaysaa dawladdii dee t b l f ee shalay tagtay oo kale inay sideedii u yar eg tahay ficiladeedii way guuleed axad sheekh oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada jigjiga oo telefoonka iigu warramayey ayuu kaasi ahaa